ومعنا عبد الله الشيخ iyo maadada chemistry-ga class-ka form 3 chapter 1 oo acid base and salt ahaa lesson 4 lesson 4 ama 1.4 waxaan kaga hadlaynaa maanta making salts waa dariiqyada iyo hababka loo sameeyo wax loo yaqaano cusbada waayahay making saltiga markaan leenahay waxaan sameynaynaa waan kala qaybinaynaa waxaan oranaynaa cusbada la sameynayaa horta ma soluble salt ba ma cusbo biyaha ku milantaa la rabaa in la sameeyo mise waxaa la rabaa cusbo insoluble ah cusbo aan biyaha ku milmayn making saltiga horta labadaasaan cusbada u kala qaybinaynaa haddii la rabo cusbo biyaha ku milanta in la sameeyo waxaan u baahannahay wax la yidhaahdo 4 methods afar hab ama 4 general methods afar hab cusbo biyaha ku milanta haddii loo baahan yahay waxaa la isticmaalayaa afar hab waayahay kow waxaa la isticmaalayaa acid plus metal waayahay laba waxaa la isticmaalayaa acid plus metal oxide acid plus metal oxide saddex waxaa la isticmaalayaa acid plus carbonate afar waxaa la isticmaali acid plus alkali haddaba qodobadaasi markaad fiiriso ama markaan meeshaa fiirino qodobadaas waxay noo sheegayaan in haddii aan u baahnay xaggaas waa gaar qaybaha dambe aan ugu tegaynaa making saltiska markaan ka hadlayno waxaan u kala qaybinaynaa marka a iyo b labadaa qaybood baan u kala qaybin doonaa a iyo b haddii loo baahan yahay soluble salt afar method baa lagu diyaarsan karaa soluble saltiga haddii loo baahan yahay insoluble-na meesheedaan ugu tegi doonaa waxaan leenahay markaa a methods of preparing soluble salts hababka lagu diyaarsado cusbooyinka biyaha ku milma waayahay there are 4 general methods waxaa jira afar hab oo waaweyn afartaasoo of preparing lagu diyaarsado soluble salt cusbo biyaha ku milanta number 1 waa kan marka afartii number 1 acid plus metal acid plus metal waa in la haysto acid iyo wax loo yaqaano bir waa in la haysto waayahay halkaasi waxaan oranaynaa acid plus metal marka laga hadlayo biraha la isticmaalayo waxa ugu caansan shantii birood ee loo bixiyey mazid metals marka waxaa soo baxaysa cusbo mazid metal ay ku jirtaa soo baxaysa waayahay biraha kale waxaa loo diiday halkan aan ku sheegi doonaa waxaan leenahay markaa this method markaan ka hadlayna habka ah acid plus metal markaan ka hadlayno is not suitable kuma habboona for all metals or all acids dhammaan biraha jira oo dhan kuma habboona asidada jira oo dhanna kuma habboona waayo waxaa jira biraha qaar sida aluminium aan asidada sida nitric acid oo kale aan la falgeli karin baa jira waxaan leenahay marka acid plus metal waxaa la isticmaalayaa mazid metal it's fine for waxay ku wanaagsan tahay mazid metaliska daats waxaan soo gaabsanay magnesium waa m aluminium zinc iron iyo tin ayaan soo gaabsanay shanta birood ayaa loo isticmaali karaa tusaale haddaan soo qaadano meesha waxaan ku haysanaa waxa la yiraahdo zinc waa bir waa solid plus sulfuric acid waa aqua maxay sheegaysaa biyaha ku jira weeyaan waa water meesha maxaa ka soo baxaya dee sulfuric acid cusbadeeda seenu akhrin jirnay sulfate baanu akhrin jirnay sidaa darteed zinkidu waa valency of plus 2 sulfate-kuna waa chargeskeedu waa minus 2 labadan way iskansalayaan marka meesha waxaa ka soo baxaya zinc sulfate oo sidaa u qoran aqua plus hydrogen gas baa soo baxaya waayahay kaasi waxaan leenahay waa equation halkaa inoogu qoran cusbada halkaa ka soo baxday waa soluble salt sidaa darteed baan u raacinaynaa aqua waayahay falgalkaasi markuu dhacayo wuxuu u baahan yahay steps iyo tallaabooyin bal meesha ila fiiri these are the steps waa kuwan stepskii marka koowaad waxaa la samaynayaa weelkii ay ku jirtay acidu dilute sulfuric acid baa ku jira meesha ayaa waxaa lagu soo darayaa birtii halkaas sawirku waxay nooga muuqata marka birtii oo lagu daray sulfuric acid meeshaasi waxaa si khafiifa u muuqda marka bubbles xumbooyin baa muuqda xumbooyinkaas waxay sheegayaan falgalkaasi inuu bixinayo gaaska loo yaqaano hydrogen gas inuu bixinayo waayahay stepka labaad horta halkaa markaan joogno
falgalkaasi markuu dhammaado inuu dhammaaday in la ogaado marka la rabo waxa dhacaya bubbles stop xumbooyinkaasi hydrogen gaaska meesha ka baxaya marka ay istaagaan stop falgalku waa dhammaaday kadib maxaa la samaynayaa another sink baa lagu darayaa waxaa la arkayaa markaa ayna falgalayn oy gunta hoose fadhiisanayso sida biikarkeenna iyo weelkeenna koowaad hadhow waxaa la samaynayaa stabka labaad waa filtering waa la kala shaandhaynaya waa la kala miiraya korka waxaa lagu reebayaa sinkidii dambe ee lagu daray lagu tijaabinayay falgalka ayaa kor lagu reebaya hoosna maxaa u gudbayaa sinki sulfate-kii cusbada ee soluble saltiga ahayd ee milantay ee falgalka la samaysay ugu dambayn iyo qodobka saddexaad maxaa la samaynayaa sinki sulfate waa dareere dabkaa la saaraya biyaha laga uumi bixinaya meesha waxaa kusoo haraya crystals of zinc sulfate waayahay the reaction haddaba falgalka bal fiiri acid plus metal waxaa la isticmaalaa baan idhi mazid metals birihii kale maxaa ku dhacay maxaa loo isticmaali waayey potassium sodium iyo potassium iyo calcium maxaa si toos loogu dari waayey waxa loo yaqaano acida waa danger waa halis badan yihiin kuwaas marka cusbadooda marka la samaynayo dhan kale laga soo wareegi سادرتي waxaan leenahay reactionka potassium sodium iyo calcium with acid is very dangerously violently waa falgal khatar badan oo qarax sameynaya kuwani marka hadii biyo lagu daray ba qarax sameeyaan hadii acid lagu darana way ka sii daran tahay sidaa darteed baan idhi falgalkani kuma arrinkani kuma haboona biraha oo dhan wuxuu ku fiican yahay mazid metalska waayahay the reaction of lead hadii lead lagu daro is too slow waa gaabis walibana waxay gaabis tahay markay acid tahay concentrated dilute acid ma markay concentrated tahay ayay waliba ay noqonaysaa slow falgalka copper iyo silver iyo gold hadii acid lagu daro do not react at all falgali maayaanba falgal wax falgala samayn maayaanba oo lama falgalaan waa unreactive metalsk marka acid loo fiirinayo waayahay kaasi waa habka acid plus metalka habka labaad oo la yiraahdo acid plus insoluble base ama acid plus metal oxide waa habka halkan aan ku hayno habka labaad waxa loo isticmaalayaa bal fiiri waxa loo isticmaalayaa unreactive metalski birihii markay keligood ahaayeen aanan acida la falgalayn sida birta loo yaqaano copper iyo lead waxaan soo sheegnay copperta inayna acida la falgelin de haddii la rabo cusbo ay copper ku jirto maxaa la samaynayaa waa in meel kale laga soo wareego iyadoo oxide wadata waa in laga soo wareego ila socotaa meesha habkani waxaan nidhi cusbada 5 birood baa lagu sameeyaa habkan laakiin cusbada la samaynayaa waxay ka kooban tahay birihii ku guul daraystay inay la falgalaan acida si toos iyagoo keligood ah ayaa waxa loo samaynayaa dariiq kale oo ay kula falgali karaan marka waxa laga soo wareegaya iyagoo oxide wata marka unreactive metalsk sida copper ayaa waxa la soo qaadanaya iyadoo ah copper oxide markaas la falgalaysa halkaan waxa ka soo baxaya cusbo ay ku jirto birihii unreactive-kii saadteed waxaan leenahay this method habkani can be used waxa loo isticmaali karaa to prepare in lagu diyaarsado salt cusbo ka kooban unreactive metal bir aan firfircooni lahayn markay keligeed ahayd sida copper iyo lead bir markay keligeed ahayd acida la falgali weydo ku guul daraysatay ayaa macna loo sameynaya oo la rabaa inay cusbo laga sameeyo waayahay meeshaas waxaan ku haysanaa copper oxide iyo sulfuric acid copper oxide iyo sulfuric acid markay isla falgalayaan sidii baan u qoraynaa copper oxide waa CuO insoluble base waa S sulfuric acid waa H2SO4 aqua warbal la soco inta markaan dhameystirayo hydrogen-tan iska ilow sulfate baa soo hadhay sulfate-kii waa kale copper waa copper 2 oxide copper-tuna waa plus 2 marka labadana iskoosanaya waxa soo baxaya CuSO4 waxa soo baxay copper sulfate aqua plus water kaasina waa liquid waayahay haddaba isagna stebisku markay dhacayaan sidii kii hore u dhacayaan these are the steps waa kuwan waxaa la samaynayaa copper sulfate-ku waa blue solution marka waxaa la samaynayaa weelkii acid ay ku jirta waxa lagu soo darayaa waxa loo yaqaano copper oxide marka lagu soo daro weelkii ay ku jirtay waxa loo yaqaano sulfuric acid-kii waxa bilaamaya falgalkii inuu bilaamo xoogaana waa la heat gareynaya tamar baa lagu saacidaya heat-ku waxa weeyaan energy is gained from tamar baa laga soo saaraya dabka waayahay halkaas waxa dhacaya marka weelkaasi copper oxide badan marka lagu daro inay sulfuric acid copper la falgasho oo ay samaysato copper sulfate oo kalarkeedu yahay blue solution waa lagu biirin copper oxide ilaa iyo gunta ay ka fariisato weelka copperti oo halka fariisato oo falgali weydo hadhow maxaa ku xiga sidii stabiskii hore filtering in la kala shaandeeyo waa la kala shaandeyn waxa laga shaandeynayaa copperti badnayd ee hoosta fariisatay ayaa laga shaandeynayaa waayahay ugu dambeyn waxa soo baxay marka aqua solution of copper 2 sulfate marka cusbadii la rabana waxa la sameeyaa
waa la heat garayn evaporation biyihii baa laga umi bixin meeshii waxaa kugu soo hadhaya crystals ama blue crystals of copper sulfate waayahay qodobkeena saddexaad oo kaa ah metal carbonate ka ah kaasi waxaan leenahay waa acid plus metal carbonate habkaasi this method habkaasi waxa loo isticmaali karaa any metal bir kasta eeg habkaasi waxa loo isticmaali karaa any metal bir kasta ma arkaysaa iyo any acid iyo acid kasta halkani ma laha isagu maxay haday wax la diidayo biro la diidayo acid la diidayo jiri mayso waa la isticmaali karaa laakiin hal shardi baa jira shardigaas wuxuu noqonayaa waa in cusbada meesha ka soo baxaysa ay noqoto soluble salt waayo waxa jira carbonates cusbada ay sameeyaan oo ah insoluble ah sida silver carbonate oo kale lead carbonate oo kale kuwaas oo kale cusbooyin ay sameeyaan insoluble jira marka shardigu halkan wuxuu noqonayaa acid plus carbonate marka laga hadlayo any metal waa la isticmaali karaa any acidna waa la isticmaali karaa provided laakiin saltiga soo baxaya waa inuu yahay soluble salt marka inagu wax solubility table la yiraahdo ayaan xiisada dambe qaadan doonaa oo ku kala garanayno cusbadani ma soluble ba mise waa insoluble waayo waxaan leenahay marka this method habka marka laga hadlayo is used with waxa loo isticmaali karaa any metal bir kasta aan any acid iyo acid kasta providing the salt maadaama cusbada meesha ka soo baxaysa ay tahay soluble haddayna soluble hayn meesha kuma jirto waayo bal fiiri hadaba equation kan soo qaadanay waa copper carbonate waa solid ila soco lagu daray nitric acid waa aqua intaasaan hayaa maxaad ka rajaynaysaa cusbada soo bixi doonta in loo akhriyayo waxaa loo akhrinayaa copper nitrate idan meesha nitric acid baa taalla nitric acid hadday taalla waa in nitrate loo akhriyaa cusbadeedii waa yahay haddaba marka intaa la samaynayo waxaan soo qaadanaynaa birta meesha taalla oo copper ah copper waa copper 2 plus 2 nitric acid markaan ka hadlayna hydrogentan iska tuur waxaad soo qaadataa inta kale nitrate-ku waa -1 marka waxa laga rabaa inaad xasuusan tahay compound ions inaad xasuusan tahay inta markaan haysano chargeski waa kala duwan yihiin halkan waa -1 halkan waa +2 cross multiplication halkan 1 baa ku dhacaya waxba ka bedeli maayo cover bay noqon 2gaasi 3ga ku dhici maayo isku dhiskaas oo dhan baa la rabaa inuu 2gu ku wada dhaco oo nitrogentuna ay 2 yeelato oxygentuna 2gu uu ku dhaco saa darteed intaan bracket gelinaynaa NO3 bracket 2 copper nitrate saasaan qoraynaa marka copper nitrate waa soluble salt maadaama ay ku jirto nitrate halka waxa sii raacaya plus water plus carbon dioxide maadaama aan isticmaalay carbonate saddex barodhig weeyaan meeshaasi halka marka la joogo ama falgalka carbonateska marka la isticmaalayo waxyaabaha lagu garanaya sagna inuu falgalku dhamaaday waxa kamid ah bubbles stop carbon dioxide baa meeshan ka baxaya xumbooyin baa la waayaya sidoo kale waxa la maqlayaa effervescence guux could be observed ayaa meesha laga baariya laga ogaanaya due to waxa ugu wacan waxa loo yaqaano guuxaasi waxa ugu wacan the production of carbon dioxide meesha carbon dioxide baa ka soo baxaya mar hadduu carbon dioxide ka soo baxayana wuxuu bubbleski iyo xumbooyinkii guux bay samaynayaan waaya kaasi marka waxa loo isticmaalayaa any metal iyo any acid laakiin shardigu muxuu noqonayaa provided cusbada soo baxaysa inay tahay soluble salt sida copper nitrate oo kale all nitrates are soluble ayaan oran doonaa qodobka dambe saddexda qodob ayaan kaga hadalay waxa loo yaqaano cashirkeennii iyo qaybteennii haddaan si kormara ku samayno making saltiska waxaan idhi laba qaybood baan u kala qaybinaynaa cusbo biyaha ku milanta iyo cusbo aan biyaha ku milmin taa kama hadal weli haynoo dambayso cusbada biyaha ku milanta marka laga hadlayo waxaa loo samaysan karaa 4 hab in la isticmaalo acid iyo bir in la isticmaalo acid iyo bir oxygen wadata in la isticmaalo acid iyo carbonate in la isticmaalo acid iyo alkali kama gaarin marka kaasi warbixin badan buu u baahan yahay acid iyo bir marka la isticmaalayo 5 birood baa la isticmaali karaa oo kuwii kale maxaa looga tagay biraha firfircoonida badan way khatar badan yihiin biraha qaarna way daahaan sida lead biraha qaarna lama wafal galaan acida saddexda qodob baan ku sheegnay halkan markaan nimidnay acid plus metal oxide-na halkan waxaa la rabaa in la diyaarsado cusbo ay ku jirto bir unreactive ah bir markay keligeed ahayd ku guul daraysatay inay acida la falgasho ayaa la rabaa waxaan leenahay markaa halkaasi markaan joogno waxaa la isticmaalayaa sida copper oo kale copper oxide baa la soo qaadan waayo coppertu markay keligeed ahayd acida lama falgasho marka waxa meesha isla falgali doona waxay noqonayaan copper oxide iyo acid
marka carbon dioxide falgalka way samaynaysaa xoogaa heatna iyo tamarna waa la gelinayaa waayahay ka u dambeeya acid plus metal carbonate waxaan ku sheegnay waxaa la isticmaali karaa bir kasta iyo acid kasta laakiin shardigu waa maxay in cusbada soo baxaysa ay tahay mid soluble ah marka cusbada inay soluble tahay inay insoluble tahay waxaan ku kala baran doonaa waxa la yiraahdo solubility table oo noo soo socda intaan soo cashirkeenu haanaya qodobkaasna ka dambaan ku daraya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi